Soomaaliya ayaa laga qaaday cunaqabateyntii saameyd 31 sano kadib kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ka yeesheen kaasoo si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraaddii hubka ee saarneyd Soomaaliya ilaa sanadkii 1992. Golaha Ammaanka ayaa xilligaasi qaraarkiisa ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaallo ay ka jireen dalka, kuwaasoo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba joog ah oo ka soo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay maslaxyada caalamiga ah sidii dalka looga qaadi lahaa cunaqabateynta. Maxay ahaayeen marxaladihii uu soo maray cunaqabateynta hubka Soomaaliya? Si aad u ogaato daawade, sii sheer garee muuqaalkan lana sii wadaag saaxiibadaada kugu dhow. Bishii Janaayo sanadkii 1992 ayaa markii ugu horeysay qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka oo tirsigiisu ahaa 733 cunaqabateynta hubka lagu saaray Soomaaliya, xilligaasoo ahayd hal sano kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe. Bishii Juun sanadkii 2001 qaraar uu tirsigiisu ahaa 1356 oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa dib u eegis lagu sameeyay xayiraadda hubka ee Soomaaliya, waxaana laga reebay hubka qaar iyo qalab militari oo cayiman. Bishii Luulyo sanadkii 2002 qaraar uu tirsigiisu ahaa 1425 oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa lagu cadeeyay hubka laga mamnuucay Soomaaliya, waxaana lagu qeexay in cunaqabateynta ay ka mid tahay mamnuucitaanka ka ganacsiga hubka. Bishii Diseembar sanadkii 2006 qaraar uu tirsigiisu ahaa 1725 oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa xayiraaddii hubka looga qaaday Soomaaliya. Qaraarkaasi wuxuu oggolaaday Urur Goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika inay faragelin ku sameeyaan xaaladda Soomaaliya, ciidamo ka socda wadamada gobollada geeyaan si ay gacan u siiyaan dowladda Soomaaliya ee taageerada ka haysato Qaramada Midoobay, isla markaana ay ka soo horjeestaan kooxaha hubeysan. Bishii Febraayo sanadkii 2007 qaraar uu tirsigiisu ahaa 1744 oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa lagu xadiday cunaqabateynta oo gaar looga dhigay dhinacyada aan dowliga ahayn ee Soomaaliya ka dagaalama, waxaana qaraarkaasi lagu oggolaaday in Soomaaliya la geyn karo hub iyo saanad militari oo looga gol leeyahay in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya. Bishii Noofembar sanadkii 2008 qaraar uu tirsigiisu ahaa 1844 ayaa waxaa lagu bedelay cunaqabateyntii hubka saarnaa Soomaaliya, waxaana lagu bartilmaameedsaday cid waliba oo ku xadgudubta cunaqabateynta hubka. Bishii Diseembar sanadkii 2009 Qaramada Midoobay ayaa mamnuucitaanka dhinaca hubka ku soo rogtay dowladda Eritrea kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay xayiraadda hubka ee saarneyd Soomaaliya. Bishii Maarso sanadkii 2013 qaraar uu tirsigiisu ahaa 2093 oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa wax looga bedelay cunaqabateynta hubka Soomaaliya iyo habka loo isticmaalo waxyaabaha la xiriira saanadaha militari ee la siiyo dowladda Soomaaliya, waxaana la sii xoojiyay cunaqabateynta ka dhanka ah dhinacyada aan dowliga ahayn.